wiil ee walaalaha ah hooyadood iyo aabahood way dhinteen oo may nooleen iyaga laftirkoodu waxa ay ku dhinteen dhacdo cajiib ah oo aad iyo aad u foolxun murugo badanna waxa la sheegay hooyadood in ay ku dhimatay ceejin amase in la bakhtiyo cunaha la qabtay hooyadood iyo aabahood waxay ku dhinteen iyaga laftirkoodu dhacdo argagax leh oo naxdin badan ilaahay ha u naxariistee labadan wiil waxa soo korsatay ee xaafidul quraanka ahaa eedadood run ahaantii waa dhacdo aad iyo aad u naxdin badan murugo badanna farxumadeedana wadata waxaa la sheegay eedadood in arrinkan maskaxdeeda ay soo gaadheen damage amase khalkhal uu ku yimid dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Kansas City ee gobolka Missouri ee Mareykanka wiilka la yiraahdo Hanad Cabdicasiis waa dilaagii dilay labada wiil ee ay walaalaha ahaayeen marxum Cabdiraxmaan oo ah wiilka hortiina ka muuqda salaadana tujinaya da'diisu waa 16 jir walaalkiisa kalena waa mid isaga ka yar oo 14 jir ahaa labadoodaba ilaahay ha u naxariistee waxa ay ku dhinteen si xun oo waliba argagax leh Cabdiraxmaan iyo Cabdiwahaab waa marxuumiintii uu dilay walaalkood waxa uu u dilay si bilaa naxariisa oo ay cadaawadi ku jirto isagoo maalmo ka hor amase wiil ka hor sii sheegay diintani inay tahay diin aan jirin diinta islaamka ayuu ku sheegay inay tahay mid beena oo aan jirin waxa uu sidoo kalena ballan qaaday oo uu oran jiray markasta waxa aan dili doonaa muslimiinta halkan masaajidka ku jirta iyo walibana Cabdiwahaab inanka finaanada cas marxuumka ilaahay ha u naxariistee aad ayuu u nabcaa oo walibana waxa uu u dilay isaga si bilaa naxariisa isagoo ku dhameeyay dhammaan xabadihii ugu jiray bastoolada Hanad oo ahaa dilaagii dilay labada wiil ee ay walaalaha ahaayeen markasta waxa uu ku celcelin jiray oo uu oran jiray wax ayaan dilayaa amase qof ayaan dilayaa laakiin idimay rumaysan jirin oo wax la moodi jiray inuu iska kaftamayo imaamka masjidka at-taqwa Sheekh Mustafa ayaa waxa uu soo qaadi jiray marka ay taraawiixda dhameystaan labada wiil ee walaalaha ah ee la dilay gaarigiisa ayuu ku soo qaadi jiray isagoo markasta waxa uu keeni jiray gurigooda habeenkii xilliga ay salaada soo dhameystaan Sheekh Mustafa ayaa soo qaadi jiray labadan wiil ee yaryar habeenkii la dilayay labadan wiil ee walaalaha ah walaalkood uu dilayay Sheekh Mustafa waxa uu dhigay guriga hortiisa iyagoo ka soo baxay taraawiixdii Hanad Cabdicasiis oo ahaa dilaagii dilay labada wiil ee ay walaalaha ahaayeen waxa uu ugu dhuumanayay guriga hortiisa markii uu arkay Sheekh Mustafa in uu dhaqaaqay oo uu gaadhigiisa ka haystay waxa uu walaaladii ku bilaabay amase uu ku furay xabado isagoo ku horeysiiyay Cabdiwahaab oo uu aad u nabcaa waxa uu ku dhameeyay dhammaan xabadihii ugu jiray bastoolada taas oo Cabdiwahaab heer uu gaadhay madaxiisii in ay ku qubatay amase ay ku daadatay dhammaanba gidaarka iyo dhulkiiba intaa kadib walaalkiisii ka yaraa ee 14 jirka ahaa ayuu u soo jeestay markii uu ku dhuftay 2 xabadood ayay ka dhamaatay xabadii waxa uu rabay in uu cabaysto inankii yaraa ayaa ka faa'iideystay jaaniskaas uu ku cabaysanaya bastoolada waxa uu si xoog u qaraacay albaabkii nasiib wanaag isla markiiba waa laga furay albaabkiina hore ayay u xidheen laakiin isaga laftirkiisu dhaawac ayuu ahaa inanka yari markii dambana waa uu dhintay daqiiqada kadib Hanad Cabdicasiis oo ahaa dilaagii dilay labada wiil waxa uu doonayay oo uu sugay intuu xabada cabaysanayo oo uu qaraacayo walaalkiina albaabka in la furo oo waalidiintiisana uu sidaa ku dilo eedadii oo joogtay gurigana jaanis uu ku helo oo ku dilo laakiin nasiib wanaag albaabka waa ay soo xidheen Hanad Cabdicasiis wuu dhaqaaqay isagoo doonaya qof kasta oo Soomaali ah muslimna ah in uu xabadan ku dhufto ee ka soo horbaxa waxa uu diyaar u ahaa qof kasta oo uu la kulmo kana soo horbaxa oo Soomaali ah in uu dilo habeenkaas waa uu dhaqaaqay isagoo gurigii ka hortagay sidoo oo kalena waxa uu la kulmay gabadh ay wax isku ahaayeen waxa uu doonayay inuu dilo isagoo xabadihii ku furay laakiin nasiib wanaag kumay dhicin xabadihii waxa la sheegay Hanad inuu ku wareegay dhammaan xaafadaha oo uu doonayay inuu dadka dilo isla markiiba boolis ayaa soo gaadhay oo xabad ay isku rasaaseeyeen madaxana way kaga dhufteen isaga laftirkiisina sidaas ayuu ku dhintay bartaas ayuu ku dhintay Hanad Cabdicasiis oo dilay 2 wiil oo ay walaalo ahaayeen kuwaas oo ahaa xaafidul quraan iyo walibana mu'aadimo ka eedaami jiray masaajidka at-taqwa daawade